الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. marka ugu horeysa ardayda sharafta badan, wiilal iyo hablo, waalidka tacabka badan soo geliyay, macallimiintii iyo professorskii jaamacadda iyo maamulka jaamacadda, dhammaantiin waxaan idin leeyahay hambalyo, waad guulaysateen. ilaahay guushiina ha ka dhigo mid fiican oo aad guulo kale oo waaweyn sii gaadhaan. waxaan doonayaa dhowr qodob oo muhiim ah anigoo maanta ah waalid oo ku hadlaya afkii waalidiinta awlaadooda iyo ardaydoodii halka ku qalin jabinayso. waxaan doonayaa dhowr qodob oo kooban oo gaar ahaan ardayda khuseeya inaan idhaahdo. waxaa la isweydiiyey ilbaxnimadu maxay tahay? ciidamo dhinac bay ula kacdayoo qolaba waxbay ku macnaysay, laakiin waxaan doonayaa bal hadda ilbaxnimadii baa la soo ururiyey, waxaana lagu macneeyey 4 eray. waxaa lagu macneeyey 1 التربية، الأخلاق، الأدب، الذكاء. وعفر أنا وذكر إنسان في عربية وتربية هي أسلوب هي دقل صوبنان، أخلاق ونكسنان، إدب سنان، هي دور سنان، هي مسكح فرنان، هي عقل جاga أوصي عن فكرة. عفر تودرنا من ولما وحوسي تاجيه. وحلا هذا التربية محيطها هي. وحلا هذا أن تعرف متى تتكلم. إن الجركتو قرمان هذا كرتا قرمو هذا هو إيه هي أما مناسب هو هي. أخلاق ترى وحلا هذا أن تسمع لمن يتكلم. إن الدجيستو أو تقويلتو عند الله ليس وحى كل هذا هي. Soomaalidu waa ku ilaa waxa lagu sheegay maankaaga la kaasho. adabna waxa la yiraahdaa alla tuqadi'a man yatakallam. cidda kula hadlaysa inaan hadalka ka dhexgelin oonad ka jarin. dakaaga iyo maskax barnaamijka halka ugu dambaysana waxa la yiraahdaa alla tusaddiqa kulla man yatakallam. inaan cid kastaba rumaysan waxa ay ku leeyihiin ay kuga hadlayaan waxa lagu sheegay maankaaga la kaashay inay noqoto. waxaan kaga baxayaa arday, waxaan doonayaa inaan idiin sheego ardaydu baa la hadlayaa dhammaanta wayna wada khusaysaa. 10 qodob oo 10 qodob hal qodob oo keliya furo u ah. 10 qodob waa albaab. albaabkaasi furigiisuna waa mid qura. 10 qodob maxay yihiin? waxa weeyaan dukhuluka aljanna oo ah yididiilada ugu sarreysay qof mu'min oo muslim oo adduunyada kor jooga uu ku yididiiloonayo. jacalani illaahu wa iyaakum min ahliha. ilaahay naga wada dhigay ehelkeeda. laba waxa weeyaan rida araxmaanu cank, inuu ilaahay kaa raalli noqdo. 3 tafriij kurubaat wa masaa'ib. mushkilad kasta oo gasho nolosha mashaqo iyo mashaakil lagama waaye inuu ilaahay si fudud kaaga saaro. 4 fatxu llaahi laka abwaaba risq, inuu ilaahay kuu furo albaabada risqa. bal haddaad u dhegaysta. 5 yucdiika allahu tacaala tuula alcimr, inuu ilaahay cimri dherer iyo caafimaad kugu gallado. waxa weeyaan 6 inuu ilaahay kugu arsaaqo inay awlaadaadu baariyiin kuu noqdaan. 7 inuu ilaahay dembiyadaada dhaafo. 8 inuu ilaahay ku siiyo adiga oo aan tegin thawaabka iyo ajriga laga helo xaj iyo cimro iyo jihaad. waa acmaashii ugu fadliga badnaa inuu ilaahay ku siiyo. 9 inuu ilaahay markaad baabacada hoos dhigata ee aad baridaba
إلهي وركاغا أن وركسو علمك وأقبلوك وأجيبك طبعا إن أي نوشا دي حياة تدعو نقطو متغيرين يا براني يا برواقا طبعا كان قضب مفتاح هذا طبعا كان قضب مفتاح هذا يا ربا يا ربا طبعا كان قضب مفتاح هذا طبعا كان قضب مفتاح هذا يا ربا طبعا كان قضب مفتاح هذا ووالد كان أو أكبر من نقطه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته